qodobkani saddexaad muscle loss sarcopenia. Sarcopenia inta badan laba nuuc u dhaca. dumarka mar hadday 35 sano kor u dhaafaan murqahoodu boqolkiiba waxaa la dhahaa 70 dhulkay galaan. haddii aanan laga taxadarin, haddii aanan cunto fiican la siinin, haddii aanan aalamiito loo samaynin, sarcopeniahan marna caafimaad darro ku yimaadaa, marna da'da keenta. gaar ahaan 40 aan abaaf gabadhu markay gasho waa caadi inuu sarcopeniahan iskeeno. ogowna masoladaada waxay dhahaan muxuu ahay metabolically active kama maarantid. murqaha jirkan ku jiro aad arkaysid ee qeybli waxa ka qaataan baruurta jirka ku jiro in la gubo. haddii murqahaga ducfi uu ku yimaado ama tabardare ay ku imaato ama awood la'aan ay noqdaan, aamin weligaa baruur ma ridaysid, weligaa miisaan ma kaa dhacayo. una fiirso gabdhaha inta badan gaajada isku dila, baahida nafta iskaaga qaada, maxaa ku dhaca? miisaanka ka wada daata, caloola ku soo harta, li'annahu calooshu baruurta ku jirtay murqihii baabi'in lahaa meesha ma joogo. hal mid marka ku siinaa talada ugu fiican solutionka marka sarcopeniahan uu soo asiibo ama waqtigan aad ku jirtidba, isku day in aad jiimka intaad tagto biraha ku train garee. biraha ku train garee markaan ku leeyahay waxayna ku tusinayay kaade kana isticmaali kartaa. kan waa bir jiimka markaad joogto, haddii aad kan ku aalamiteeso still bira isticmaaloosaa. okay, waxaa isku daydaa jirkaaga gaar ahaan murquhu inay helaan wax un iska caabin ah, resistance, in aad xoogaa yar awood u sheegato. taas waxay ka caawin kartaa inuu muruqi dhismo. mar walba muruqaaga dhismana aamin jirkaaga faadkana wuu gubi wuuna ku qurux badnaana insha Allah taala.